السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada Somalia Greens maanta kastoo waxa waaye ayaamahan qoraxda tartiib soo baxayso qabowgu naga tagaraba laagsaasay tahay qorax beenbeen markoo ala haariyasta haariyada way fiican tahay marka maanta asxaabteeda waxaa rabaa inaan idin sheego waxaan iga balan qaaday biotin kaniiniga oo timaha lagu bixinayo timaha lagu dhaadheereynayo timaha lagu qurxinayo marka biotinka uu yimaaday saana uu yaalaa waxaa la bio3 waxaa la 3 ku dhufo biotin marka waxa waaye timaha ayuu bixinayaa oo dheereynayaa haddii qofka timaheeda ka goosan tahay haddii aad tahay qof oo timaha oo ay jajabsan yihiin ama markaa shaleynaysa aad u soo daadanayo geedkan aad ku anfacaya waxaa ku jira biotin vitamin C collagen iyo wixii kaloo wadataa zang iyo waxaa kaloo ku jira liquid mujeedino biotin collagen vitamin C vitamin A waxaa kaloo ku jira zang calcium oo asigana fiican iyo waxaa kaloo ku jira liquid soft oo timaha loogu talagalay markaan alaabtan waxaan ka dalbaday website la dhahayo herb.com websitekaas waxaan ka gataa waxyaabo badan oo vegan oo natural oo aniga aan isticmaalo kana hadda aan soo gaday marka insha Allah ramadaanka markuu bilaabanayo ayaan isticmaalaa waa cure waxaa ku jira 6 xabo capsule si capsule ahaan ayaa u qaadanaysaa marka si capsule ahaan u qaadatid waxay kaaga caawinaysaa timaha oo gogoosan timaha aan daryeel lahayn timaha maxay ahayd oo ka soo daadanayo marka shalada ku shaleynaysid timaha ka soo daadanayo waxaas dhan ay kaaga caawinaysaa marka nutrition ay timaha siinaysaa by the way cijaan wax way u taraysaa alaabtaaniti cijaan way fiican tahay collagen ku jira collagen wuxuu taraa collagen skinka wuu fiican yahay cijaha wuu fiican yahay timahana wuu fiican yahay jirkeena collagen wuu sameeyaa laakiin waxa waaye marka aan weynaano iyo cuntooyinkii stresska iyo environmentkii si loo nool yahay collagenka wuu nagu yaraadaa marka geedaanayta collagen ayay wadataa waa herba waa natural waaye vitaminkaas iyo biotinkaas waxaas la soo diray marka waxba oo ujeedina waa kana saana u yaaliin alaabtan kale la soo diray waa rich formula vitamine marka ay garaalaada asxaabtay waa rich formula oo vitamine marka waxaa ku jira biotin vitamin C collagen zang calcium waa ku jira capsule waxaa qaadanaysaa subaxdii hal xabo markaa quraacatid ka bacdi because waa supplement oo timaha ku nafaqeynayo timaha bixinayo timaha nutrition siinayo iyo la dagaaltamayo hair loss iyo hair gogooda qabtid timaha nooga waxay ka gogo'ayaan waxa waaye marka barkiis waxa problem caafimaad ay noqon kartaa marka barkiis waxay noqon kartaa inay tahay walwal badan tahay ama fikir badan tahay haddii walwal badan tahay fikir badan tahay iska yaray ashwagandha waa qaadan kartaa waxay kaaga caawinaysaa stresskii walwalka waxaas way dejisaa qofka aad ay u caawintaa dhinaca hurdada iyo qofka markuu anxiety qabo oo walwal badan yahay oo for nothing maanta oo dhan aad iska walwalaysid way kaaga caawinaysaa ashwagandha qaadan kartaa haddii aad tahay qof unguwaas ama walwal badan qabo so waa kana kaniini oo dalbe asxaabteyda waa kana marka biotin waaye hair and nail waaye biotin vitamin C zang collagen iyo hawaaye iyo calcium iyo liquid soft gel waxa la ku jiro oo nutrition oo timaha loogu talagalay marka kan waxa waaye gudaha ka qaadanaysaa timahana ogaa kan waa qaadanaysaa waa supplement oo timaha kaaga caawinayo inay ku qurxiso inay ku bixiso laakiin markasta ha ilmaamin inaad cunto fiican cuntid inaad dietkaada fiirisid inaad check-ups soo samaysid inaad vitaminka maqan yahay calciumka maqan yahay inaad iska soo baartid loo baahan yahay cuntooyinka badan qudaarta green waa inaad style lifekaada bedeshaa hadaartid inaad madaxaada ilaa lugtaada inaad health ka noqotid mid kale waan ii sheegayaa adduunka laba bari waayo one life waa qabtaa marka saas daraadeed nolosha waxyaabaha qaarkood wax kasto so serious looma qaato anitaasan ka fahmay because markaas wax kasto so serious u qaata wax kasto too much fikirtid problemka waxa waa adiga hadhow damage ku gaaraay caafimaadkaada damage gaaraay marka saas daraadeed fikirka badan iyo walwalka badan iska deji ficilkaada badi hadalkaada ha yaraado hawshaada ha badnaato
relaxigaadana ha kuu badnaado. Isbuuci hal mar isku day inaad one time aad ku nasato heshid. haddii aa maamooyin tahay ay ka understand ama aabba aad tahay oo stresskaada iyo howshaada badan yahay is normal. Even haddaad single tahay, dadkeena singleka howl badan aa lahayaa ilaahay anoo soo fududay. marka even haddaad single tahay, isbuuci one time naso. axadii ama sabdiga maalinta off tahay, naso, wax yar ka naso, ama hurdo fiican hurud, ama green tea waxaad just telefoonka kulli iska dadami 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo ku qoro buuggaada ama waxaad I don't know sidaa tahay, laakiin dadka waxaa ahay structure ku socdo, aniga iska socdo markas wax waa qorqoraa, waxa inaan wax qoraa u baahanaa, haddaan wax qoran waa hilmaamaa ya binaadan ahay. marka structure waa inaa ku socotaa oo program iyo wax lahaataa oo hadhow aad iska damisaa telefoonkaada axadii ama sabdigii ama maalinta off tahay, telefoonkiina aad iska damisid oo relax noqotid, shaaygaada cabtid tiraahdaa loo baahan because adduunya howl ma ka dhamaanayo, problemna ma ka dhamaanayo, anagunbaa dhamaanayno. marka waa kaas asxaabteyda, kaniiniga waa kana, waa keena kapsalka oo biotinka timaa lagu bixinayo. waa biotin, waa vitamin C, waa zinc, waa calcium. hana hilmaamin kana qaado, laakiin ogaa cuntada ku dadaal, style lifekiiska bedel. haddii aad tahay qof xanuunsan, qof diabetes qaba, qof medicament u socoto ama treatment u socoto, please dhakhtarkaada u warso. okay, dhakhtarkaada warso, dhakhtarkaada ula tasho, weydii haddii aad complement kan isticmaali kartid. of course kan vitamin iyo calcium iyo collagen iyo adduunyaa ku jirta oo timahana biotin waa ku jira oo timaha iyo neelka iyo skinka u fiican oo qurxinayo oona hagaajinayo. marka biotinna timaha aad ay ugu fiican tahay, timaha oo gogoon way bixinaysaa, timaha sidaan kugu sheegay oo soo bixinin, ama timaha oo maxay ahayd oo markaa shaleynaysa wax badan kaa gogo'aya, ama timaha daryeel la'aanta. biotinka waa wax timaha aad iyo aad looga amaanay. marka aniga hadda ma bilaabayay, insha allah bisha ramadaanka markay bilaabato aan bilaabayaa, because hadda weli waxaa ii socdaa kuurkii omega 3, omega 6, omega 9 kaas ii socdaa. marka haddii aad kuur sameynaysid, aad complement kale isticmaalaysid, hadda ama ashwagandha ayaa kuu socoto, ama waxaa kuu socoto omega 3, omega 6, omega 9, ama waxaa kuu socoto detox. kuwaas marka hore dhameey. markaa kuwaas dhameysid ka bacdi kan bilaab. boqol complement ha isku isticmaalin. haddaba dhagaha fur dhageyso, step by step, one by one waay. haddii aad tahay qof xanuunsan, ama qof diabetes qabo, ama qof la qalay, ama qof problem caafimaadka ku qabo oo treatment ama dhakhtar la socdo, please dhakhtarkaada ula tasho, weydii haddii lagu ogol yahay inaad complement qaadato. geedahan waa complement oo kaa caawinayaan, timaha bixinayo, skinka waxaasan u fiican, kuna nafaqeynayo, gogo iyo waxaas kaa baabinayo. marka complement waa vitaminyaal ay wataan, kuur waay. kuurkan waxaa waay 1 bilood, 2 bilood ama 3 bilood, laakiin kuurka maximum 3 bilood waay. inta 60 kapsalaa ku jira, 1 bilood inaan baroobay ahaan aan soo gado, sidaa idinkan nila wadaago natiijada iyo waxyaabaha aan ka helay iyo dhirka waxay ku darsoomaya. insha allah waan nila soo socodsiinayaa. markaan hadda omega 3, omega 6, omega 9 ayaan dhameynaa. markaa kuwaas dhameeyo kadib ayaa kan bilaabaa. sida hadda kugu sheegay, haddii wax kuu socdo aa complement kala qaadanayso ama vitaminyaal kale ku socdo, please kuwaas dhameey. markaas kuwaas soo dhameysa ka bacdi kan waa bilaabi kartaa. eherb.com ayaan ka gatay, qofkii u baahan website-ka wuu ila soo xiriiri karaa. waa kaas asxaabtay vitaminkan ii sheegay maanta ayuu imaaday. anna insha allah ramadaanka bilaabaa. marka markastana style lifekiiska sax, caafimaad haddaa rabtid muhiim waaye. inaad cuntadaada iska ilaalisid, dietkaaga ilaalisid, wax stress kuu furaayo iyo wax toxicity iyo maanta dhan wax laisjijiidaayo iska saar, because taas nolosha maahan every time in laisjijiido. haddii la isfahmeyn adduunka waa sax waaye, tartiib ha la isku dhaafo. kheyr aniga wadooga asxaabteeda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku mahadsantihiin loofkiina iyo sheerkiina.